saddex qof oo ka soo jeeda deegaan baarlamaaneedka Banisa ismaamulka Mandera ayaa dacwad u gudbiyey hay-adaha baaritaanka dalka si ay u baaraan kiis la xiriiro mashaariic waddo oo deegaankaasi laga hirgeliyey oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid sharci darro ah. saddexda qof oo lagu kala magacaabo Maxamuud Cusmaan, Raaxow Mukhtaar Muumin iyo Khaliif Nuur Xaaji ayaa warqad u qoray wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka Kipchumba Murkomen iyo maamulka wadooyinka ee Kera, iyaga oo sheegay in mashaariicda wadooyinkaasi ay daba marsan yihiin sharciga. qayladhaanta ay saddexdan qof direen waxaa ugu weyn in ugu horreyn aan la tixgelinin rabitaanka dadweynaha oo mashaariicdan aan lagu fulinin codsi dhankooda ka yimid, in mashaariicda wadooyinka qaar 2 jeer la soo xayeysiiyey, iyo in intii dhismaha wadooyinkaasi ay socdeen aan lagu samaynin kormeerkii loo baahnaa. warqadda kiiska waxaa sidoo kale ku xusan in maamulka Kera ay jabiyeen sharciga wax soo iibsiga iyo mashaariicda ee 2015 ee afka qalaad lagu yiraahdo Procurement Act 2015 iyo kan maareynta dhaqaalaha ee 2021. deegaanka Banisa oo ay wadooyinkan ku yaalaan waxa uu ahaa xildhibaan la'aan kadib markii Abriil u geeriyooday Allah u naxariistay xildhibaan Kulow Macalin oo 2022 loo soo doortay in dadkaasi uu matalo. warbaahinta Columbus waxa ay fahansan tahay in guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EAC-da iyo agaasinka dambi baarista dalka ee DCI-da lagu wargeliyey dacwadda ka timid saddexdan qof ee reer Banisa, haatanna baaritaanadooda ay soconayaan. marka adiga ama ilmahaagu uu jirrado habeenkii ama maalintii uma baahnid inaad u safrato isbitaalka. la kulan dhakhtarka si raaxo leh adoo gurigaaga jooga oo adeegsanaya fiidiyowga telefoonkaaga ama kombiyuutarkaaga. la kulan dhakhaatiir khibrad iyo takhasus leh oo heegan ku ah. dalbo qof ka mid ah qoyskaaga ama turjubaan inuu ka qayb galo kulanka la tashiga dhakhtarka. daawada iyo shaybaarka gurigaaga ayaa toos lagugu keenaya. ha sugin ilaa aad jirrato. hadda sawiro ama soo dejiso abka Quick Health Patient ama booqo website-ka quickhealthdoctors.com. markaad dhakhtar u baahatid habeen ama maalin ha isdhibin, la soo xiriir Quick Health Doctors.